meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka caalamka waxaana kamid ah ciidamada gaarka ah ee danab oo burburiyay saldhigyo shabaab ay ku lahaayeen Jubbada Hoose iyagoo nafta dhaafiyay amiir caana ciidamada ka amar qaata Siciidani oo qabtay hogaamiye al-shabaab u sareeyay deegaanada Puntland isaga iyo xubno kale Itoobiya oo sheegtay in Soomaaliya ay raaligelin ka siisay qalad ay ka gashay iyo Soomaaliya arrinta beeniday dood ka taagan soo xulista saraakiil ciidan oo tababar ugu qaadaya dibadda oo ka taagan filla Soomaaliya isbedel lagu sameeyay mas'uuliyiintii degmooyinka gobolka Gede ee dawladda ku biiray iyo laba nin oo kufsi ka geystay degmada Warshiiq oo gacanta lagu soo dhigay waa galab Isniina taariikhda ay ku beegan tahay 23 bisha 3 Maarso sanadka 2020 intaad maqasheen wixii ahaayeen qodobada ugu waaweyn wararka caalamka iyagoo faahfaahsan ku soo dhawaada saaxiibayaal aan ku bilowna Jubbada Hoose ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee danab ayaa burburiyay saldhigyo shabaab ay ku lahaayeen gobolka Jubbada Hoose faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya howlgallo iyo duqeymo isbarbar socday oo saacadii aan soo dhaafnay ciidamada huwanta ay ka fuliyeen deegaano hoos yimaada gobolka Jubbada Hoose koonfurta dalka Soomaaliya howlgallada ahaa kuwa qorsheysan ayaa waxa si wada jir ah u fuliyay ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee danab iyo diyaaradaha Mareykanka iyadoo la beegsaday saldhigyada dagaalyahanada al-shabaab ay ku lahaayeen qaybo kamid ah gobolkaasi taliyaha ururka shanaad ee ciidamada danab Xasan Maxamed Aadan Ciraaqi oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay weeraradaasi wuxuuna sheegay inay ku burburiyeen ilaa 3 saldhig oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan maleeshiyada shabaab Xasan Ciraaqi oo hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay in saldhigga koobaad ee cagta la mariyay uu ku yaalay tuulada Buulaxaaji halka labada kale ay shabaab ku lahaayeen tuulada Lagta Caano oo ka tirsan isla Jubbada Hoose sidoo kale taliyaha ayaa intaasi ku daray in gebi ahaanba la wareegeen saldhigyadaasi isla markaana ay haatan ka wadaan baaritaano dheeraad ah ugu dambeyn waxa uu sheegay in howlgalkan iyo duqeynta barbar socotay lagu burburiyay laba gaari oo ah kuwa dagaalka oo tilmaamay in la socdeen saraakiil sarsar oo ka tirsanaa kooxda al-shabaab isla markaana ay ku jireen kuwa ajaanib ah wali ma jiro wax rasmi ah oo ka soo baxay dhanka dagaalyahanada al-shabaab oo la xiriira howlgalladaasi ciidamada huwanta ayaa maalmihii ugu dambeeyay xoojiyay dhaqdhaqaaqyada military ee ay ka wadaan gobolada Jubbooyinka ee dowlad goboleedka Jubbaland markaana aan fiirino magaalada Boosaaso oo lagu qabtay sargaal sare oo ka tirsan al-shabaab iyo xubno la socday ciidamada amniga dowlad goboleedka Puntland ee loo yaqaan BSF ee sida gaarka u tababaran ayaa maanta Isniina shaaciyay inay gacanta ku dhigeen shakhsiyaad lagu tuhmayo inay ka tirsan yihiin maleeshiyadka al-shabaab iyo Daacish qoraal kooban oo ka soo baxay taliska ciidamada BSF ayay ku sheegeen inay xalay gudaha magaalada Boosaaso ku qabteen shakhsiyaad la xiriirinayay inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab iyo Daacish ee ku dhumaaleysta buuraleyda Calmadow iyo Calmi Iskaad ee gobolka Bari uu ka mid yahay hogaamiyaha al-shabaab ee Puntland qoraalka ayaa sidoo kale lagu xusay in ciidanka ay gacanta ku dhigeen agab la doonayay in loo gudbiyo maleeshiyadka al-shabaab iyo Daacish ee ku sugan buuraleyda gobolka Bari inkastoo aysan faahfaahin dheeri ah ka bixin shakhsiyaadka iyo agabka laga qabtay midkoodna qoraalka ayaa sidoo kale lagu xusay in ciidanka ay gacanta ku dhigeen agab la doonayay in loo gudbiyo maleeshiyadka al-shabaab iyo Daacish ee ku sugan buuraleyda gobolka Bari inkastoo aysan faahfaahin dheeri ah ka bixin shakhsiyaadka iyo agabka kale ee la qabtay midkoodna taliska BSF waxay sidoo kale sheegeen in gudaha Boosaaso ka wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga kuwaas oo wali ka socda xaafadaha kala duwan ee magaalada Boosaaso xubnahan lagu tuhmayay inay ka tirsan yihiin al-shabaab iyo Daacish ee lagu qabtay Boosaaso ayaa imaanaya iyadoo maalmihii dambe al-shabaab iyo Daacish ay xoojiyeen weerarada ay ka geysanayaan gudaha magaalada Boosaaso laba maalin ka hor al-shabaab ayaa si bareer ah maalin cad waxay weerar ugu qaadeen dekedda Boosaaso waxaana halka lagu dilay mid kamid ah shaqaalaha maaliyadda gobolka Bari ee qaabilsanaa dekedda Boosaaso iyo xubno kale oo iskugu jiray ciidan iyo shacab Soomaaliya ayaa cadeysay mowqifkeeda ku aadan xiisadda Itoobiya iyo Masar
wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Ambassador Axmed Ciise Cawad oo weli ku sugan magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xiisadda webiga Niil ee u dhaxaysa dalalka Itoobiya iyo Masar kadib wareysi gaar ah oo siiyay idaacadda Daljir. Cawad ayaa cadeeyay mowqifka dowladda federaalka wuxuuna sheegay in Soomaaliya ay dhexdhexaad ka tahay khilaafka xooggan ee u dhaxeeya labadaasi dal. sidoo kale Cawad wuxuu tilmaamay in fursadda kaliya ee u furan dowladda Soomaaliya ay tahay inay isku soo dhaweyso labada dhinac. wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka oo sii hadlayay ayaa daboolka ka qaaday in marraba Soomaaliya loo yeerin doonin go'aankeeda sidoo hadalka u dhigay. dhinaca kale wuxuu beeniyay wararka sheegay in Soomaaliya ay saxiixday qaraarkii ka soo baxay shirka jaamacadda Carabta ee lagu taageerayay dowladda Masar balse la sheegay in markii dambe ay ka laabatay kadib cadaadis uga yimid dhinaca Itoobiya isagoo dhammaan wararkaasi gaashaanka u daruuray kuna tilmaamay kuwo waxba kama jiraan. hadalkan ayaa ku soo aadayay iyadoo saacadihii la soo dhaafay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ay shaacisay in dowladaha Djibouti iyo Soomaaliya ay soo gaarsiiyeen dhambaale ay aad uga xun yihiin qaraarkii jaamacadda Carabta ee lagu taageerayay Masar. dhanka kale war ka soo baxay dowladda Itoobiya ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay qaraarkaasi raaligelin ka bixiday. dowladda Itoobiya ayaa si weyn uga xumaatay qaraar uu dhawaan ururka jaamacadda Carabta uu ka soo saaray xiisadda Niil ee kala dhaxaysa dalka Masar oo ay ka qayb ahaayeen dowladaha Soomaaliya iyo Djibouti. qoraalkaasi ayaa cambaareyn loogu jeediyay Itoobiya midaasi oo keentay in dowladda Itoobiya ay si weyn uga gubato in qaraar ka dhan ah ay ka qayb noqdaan Djibouti iyo Soomaaliya oo saaxiibtinimo dhow la leh Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya. ururka jaamacadda Carabta ayaa garab istaag weyn u muujiyay dowladda Masar xiisadda kala dhaxaysa Itoobiya iyo webiga Niil taasi oo loo arko inay keentay galaangalka weyn ee Masar ku dhex leedahay ururkaasi. Soomaaliya iyo Djibouti oo ka tirsan ururkaasi ayaa iyagana qayb ka ahaa qaraarkaasi inkastoo markii dambe fariin raaligelin ah gaarsiiyeen Abiy Ahmed oo isagu si weyn uga carooday inay ka qayb noqdaan qaraarkaasi. dood culus ayaa ka taagan soo xulista saraakiil ciidan oo tababar ugu qaadaya dalka dibadiisa. waxaa soo baxaya dood ku saabsan sida loo soo xulayo ciidan ku jira militariga Soomaaliya oo loo qaadayo tababar muhiim ah oo ka dhacaya dalka dibadiisa. khilaafkan ayaa salka ku haya in ciidan loo soo xulo qaab ku saleysan qabiil iyo in loo soo xulo nidaam kale oo u degan ciidanka qaranka gaar ahaan wasaaradda difaaca balse waxaa diidan haweeney ka tirsan sida la sheegayo xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya awoodna badan ku leh xafiiskaasi. tababarka ciidankan oo ah mid casri ah isla markaana ay ka faa'iideysan doonaan tiro kooban ayaa la qorsheeyay inuu dhawaan dibadda ka dhaco balse waxaa dib u dhigay dood taagneed iyo cudurka coronavirus waxaana wararka ay sheegayaan in loo qaadi lahaa Turkiga halka warar kalena ay sheegayaan in loo qaadi lahaa Ruushka oo muddo dheer kadib bilaabaya tababarka saraakiisha ciidamada Soomaaliya. haweeneyda xafiiska ra'iisul wasaaraha ka tirsan oo ciidamada qaabilsan waxay dalbatay in iyada ay soo xusho halka taliyaha xoogga General Oduwa Yuusuf Rago diiday waxayna arrinta u gudubtay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Qeyrre iyo Farmaajo ayuu yiri sargaal ka tirsan xarunta taliska xoogga ka dhamaan la khilaaf iyo muran kala dhaxeeya xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyrre. markaana haddii aan fiirino saaxiibayaal gobolka Gado isbedel ayaa lagu sameeyay maanta mas'uuliyiin ka tirsan degmooyinka gobolka Gado. gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Gado ahna kusimaha gudoomiyaha Cismaan Nuur Macallimow ayaa wuxuu xilal ka qaaday qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Gado iyo ku-xigeenadooda isagoo mas'uuliyiin kala magacaabay. wareegta ka soo baxday xafiiska gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Gado ayaa waxaa xilalka looga qaaday gudoomiyaashii degmooyinka Luuq, Balad Xaawo iyo Doolow iyadoo la magacaabay gudoomiyaal cusub iyo ku-xigeenadooda. arrintan xilka qaadista ayaa ku soo aadeysa iyadoo cirku isku shareerayay khilaafka u dhaxeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland. gudoomiyaashan oo hore u hoostigi jiray Jubbaland ayaa kol hore intaanay xilka laga qaadin ku dhawaaqay inay ka go'een Jubbaland kuna biirin dowladda federaalka balse maanta ayaa gabi ahaanba xilalkii ay ka hayeen gobolkaasi laga qaaday. markaana Shabeellada Dhexe laba nin oo kufsi ka geysatay degmada Warshiiq ayaa gacanta lagu soo dhigay. xogayaha maamulka degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellada Dhexe Cabdullaahi Raage Culow ayaa ka warbixiyay howlgal lagu soo qabtay rag la sheegay inay xalay kufsi ka geysteen degmadaasi. Culow oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay gacanta ku soo dhigeen laba nin oo lagu eedeeyay kufsi haweeney Warshiiq lagu geystay.
xogayaha ayaa tilmaamay in ragga la soo qabtay ay kamid ahaayeen kooxo maleeshiyaad ah oo maalmihii la soo dhaafay dhibaatooyinka waday magaaladaasi sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in qabashada raggan ay gacan ka geysteen dadka shacabka ah isla markaana uu mahad celinayo ugu dambeyn xogayaha ayaa carabka ku dhuftay in ay sharciga la tiigsan doonaan raggan la soo qabtay isla markaana ay marin doonaan ciqaab adag gobolka Shabeellada Dhexe oo ay ku badan yihiin kooxo burcad ah oo ku sugan wadooyinka gobolkaasi ayaa inta badan dhibaatooyin u geysta dadka safraya intaas ayaan ku soo afmeerinaa saaxiibayaal qodobadii aad nagala socoteen haddii aad nagu cusub tahay ama haatan aad nagu soo biirtay fadlan